السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام يا dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waan idin salaamayaa soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada magaalada xaalad xun baa ka dhacday kulay waan ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu ka samato bixiyo ummadda Soomaaliyeed ee meesha degan inuusan ilaahay dhibaato u keenin saad ogeydeen ba madaxweynihii hore dawladda deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar isqabsi dheer iyo dabadii wuxuu madaxweynuhu iska dhiibay xilkii oo uu iscasilay isagoo u daneynaya ummadda si walbaba ahaatee madaxweynuhu xilka wuxuu ku wareejiyey madaxweyne ku-xigeenkiisii Axmed Cabdi Ilka Case asaga ayaana muxuu hadda madaxweynaha deegaankaas ku meel gaara isku dhici dhacay maalintii dhaweyto ciidamadu soo galeen magaalada isku dhici ka bilowday dadka shacabka ay gadooday waxyaalo badan ba xag iyo xagaba ka dhacday hasa ahaatee maanta tii ma taagna oo madaxweynihii haddii la haystay ama dhibaato sameynaya Cabdi waxa weeye hadda uu ka baxay si nabadgelyo nooga soo tagay isagaana iskiiga soo tagay Addis Ababa jooga san xogta ku hayo maanta magaalada Jigjiga marka dadkii saddex bay u qaybsameen nin wanaag sameynayo doonahay ummaddu inay nabadgelyo ku noolaato oo wanaag rabo oo la war isdajiyo wax qalalaasi iyo buuq mar waa dhici kara laakiin waxaan Ilaahay baa qadaray buuqa inaga daaya oo aan nabadgelyo ku noolaano iyo in balaayasheego doonayso inay weligeed wax burburiso oo dab kicinayso iyo in jaha wareertay oo shacab meel ay ku hagaagtaba garan la magaalada Jigjiga maanta way degan tahay shalay madaxweyne Axmed Ilka Case wuu hadlay wuxuu yiri war xafiisyada waa shaqo bilaabayaan dukaamadii oo dhan hal la furo magaalada nabadeedii ha lagu soo celiyo ciidanka militariga meesha joogana cidna waxba yeeli maayn cidna waxba lama dilahayo wixii dhacay ee shil ku dhacay wuu dhacay laakiin waxa hadda taagan wax dhacay ma jirto ciidanka liiw booliska xirooday ku jiraan nabadgelyo ku joogaan magaalada dadku baahiyaysan u dhamaan iyaysan dhibaato dhicin inagu yeenan isqixinine magaalada hal furo dukaamadeedu madaxweynuhu shalay ku qodbaday iyo Stephen daawaneyseen mooyeen garaadadii iyo magaalada salaadiinta joogay way hadleen waxay yiraahdeen magaalada sidaas oo kale u hadleen oo yiraahdeen magaranaysaa nabadgelyo iyo aan ku joogno oo magaalada yaan laga qixin oo yaan la islaynin taasina waan soo dhaweynaynaa laakiin dad baa doonaya meediyaha Jigjiga khadku ka jaran yahay oo leydkii baan jirin leydku meeshu dagaal ka dhaco waxba ku guban kara leydku waa la gooyay leydka dii la gooyay internetna waa tagaya war dadka meediyaha jooga ee halkan jooga ee intay soo share gareeyaan fiidiyoyadii South Africa la isku leeynay ama kuwa Kenya ka dhacay intay soo share gareeyaan ku qorahaya waa dowladdeegaanka waa dadkii deegaanka oo la leeynay axmaara leeynays walaalayaal dad baad hurinaysaan ummadda meesha ku leeynaysaan sidaas ma xaaladu magaaladu way nabad qabtaa magaalada waxaa lagu amray cidna inaysan ka qaxin dhanka wajaara loogama bixi karo dhanka dhigax buuran loogama bixi karo magaalada ammaankeeda la doonayo dadku waa maati ma qaxi karaan inay meeshooda joogaan wax dagaal iyo wax rashbad iyo wax balaayo ka socotana ma jirto baajaajadu engage bay ku shaqeynayaan baajaajadu way shaqeynayaan maxaan ku raadey dukaamadu way furan yihiin magaaladu way isku socotaa dadka meediyaha fadhiya ee fadhi ku dirarka ee doonaya inay dadka qaxiyaan war Soomaaliya inta 30 sano burbur iyo dagaal ku jirta wad ogtiin maanta inuu maalin walba qarax ka dhacayo dadkan haday qaxaan qaxsan xageed geenaysan ii sheega waa qalad ilaahay Soomaali way nabad ha ku soo dabaalo wadankii dhanaaba burbursano 10 sano maxaa 30 sano dagaal ku jiro oo qax iyo balaayo la taagan yahay walaal wadanku waa nabad wixii dhacay buuq ahaa iyo wixii dhacayna inqilaab waa iska dhici karaa ama buuq waa dhici karaa wax xaq alla ka yimid u qaata haddana xaaladu dajiya waxaan idin kula dardaarmayaa oo idin ka codsanayaa oo ummadda deegaanku dadka maatida iyo dadka aan tabar lahayn in meel u qaxi karin in meel u carari karin ay idinka doonayeen kaliya nabad bay idinka doonayeen kaliya meediyaha waxba laga ololiyaa meediyaha waxna waa lagu dajiyaa waxna waa lagu ololiyaa afku xabadda waa ka daran yahay dadka doonayo inay wax burburiyaan ee ololinay ee balaayo soo shar garanay oo onag baa lagu soo duushay Oromo baa lagu soo duushayday warnimada Oromo waa la isgarab deganaa waligeed waatan waa la isgarab deganaa Oromo xaq baaban ku leenahay luqadeeda Soomaaliga dhan baaban u qorayba oo boorama meesha lagu qorahay dawladda Soomaaliyeed baa u qortay war dadka inuu soo garab istaagnay walaal la yahay la isgarab taagan yahay oo malaynaya waxay shalay ay u ka cararayeen maanta inay dadku sameynayaan ee siyaasaddu baa meesha taale iyo jalfis xuna waa lagu wada dhacay dadka dejiya deegaankan Soomaaliba askala nin walba deegaan buu leeyahay nin walba wixiisi buu leeyahay
نول بوحيس وهايستا يقو حوض وهايستان ولا ليالو دادك نبض بأوباهي نبض هلا دتشيو أرمو هدي تشيو شوكتي واقع حوارتني وشارك هذا طلوده qabti dhacay waxay dadkii wax laga boobay xamaar ay u badan yihiin iyo dad yar soo gaarino 30 sano iyo 40 sano kula noolaa dargi inta meesha ka carreen Soomaaliyoobay oo in hebel ku garanayo in hebel u garanayso oo magaciisa Soomaali la wada baxay oo Soomaaliyoobay oo kula nool baantidoodii waxoodii la dhacay oo hebel iyo hebel la leeyahay oo ku haboonay waxaan la sameeyay maysan haboonay haatan iyo dan waxa umada deegaanka doonaa in nabad lagu noolaado dagaal wax faa'iido u keenay ma jirto horaga loo baabay dimuqraadiyad waan u baahanahay dadku inay isku furmaan oo loo kala xidhin kana siyaasad kala wato iyo kana siyaasad kala wato oo wax lagu farxo waana wax maanta deegaanka basameeyay Itoobiya oo dhan ka dhacay oo Addis Ababa oo alif calaamadeedii fanaadaha la wada xiran yahay oo shir lagu qaban hayaa taas naftigeedu waa guul soo hayto umada waa ay walba bursh xarlon baa la ismarinayo oo la soo dabordahay waxaas uu dhamaaday adigoo oo alifa adigoo Soomaali weyna adigoo meesha doonto ka imaatay xornimo ugu noolow oo hadal inta qofka hadii aad hadli karto oo free u hadli karto oo waxa doonto sameey karto intaas ku filan walaal marka waxaan idin ka codsanayaa hadii ay jirto walaalnimo hadii ay jirto waxaan ku raadayay dirnax umad Soomaaliyeed dad u dirnaxaysan dadka meesha jooga dadka media ka bambuurinay inuu meesha xabad dadkii lala dhacayo ولا لا يالو بين بس شيء إنسان واحد حبل لا داعي ما شرته ومدي ديان كشوفتي بهذا يسا 24 hours بتلفون خدك اللي يسوي شراء وحاسي وداعي قبيل إسكداية قبيل إسكداية إلهي بقى يدكوا عذابي إسكداية قبيل هم اللي ما إذا تأخذ كلية تذكر هذا النورشي وحلقة بسدا ودن كينا هيستا هدي العبد من عبد النبعاية وهذا العبد النبعاية إذا مسياسات وتسكو قبتين ودك كاري ورمان تشكشيو وتك هذا ورنبضة أرد محن كرادا حسبي وكصبير أما حسبي كلا حسبي هاي كلا لطق واحد يسرح ريح هاي هذا ما يشرتو وحن أنا ميسان هاي هذه سياسة شرتي اللي يسكو هاي وايد ماتي وحن الله يا هذا نور ربعنا سيجار ولا هذا نمانك حلك هذا هاي حسبي يشوجا حلك لينك وليه مدحونا هذا حلك الأودي بي أحمدو مدرنا مدحونا حلك الله كوا أسترو لكن هلا جو haddii cabdi dadku ay nabcaayeen cabdi la dagaalamahayeen maanta aad barti jooga haddaba shalay cadow lahayn maanta kun cadow baad yeelan doontaa xilka ku keenaya shalay media dadka qaar un baa jira intaada xun wada intaada sanna inay soo saaraan ay meesha keenaan marjin la ayaguna qabqabta jirta iyo dagaalka iyo buuqa jira ilaahay baan ka rajeynayaa inuu damiyo ninkii siyaasad iyo siyaasad isku qabteen madaxweynihii hore meesha ka tagay u yeer adigoon u daneynaynin siyaasad adiga taa ah adigoon u daneynaynin shakhsiga la siyaasadii u danee umada deegaanka qof walba oo banaanka deegaanka ka jooga ku darmaayo ururka oo an alif in ka badan 30 sano ay banaanka jiraan waxay u dagaalamayeen wada hadal iyo hawshooda ayaga u taalaa oo anigu halkaas faragelmay siyaasi laakiin dadkii deegaanka jooga ee siyaasad u kala tagay hadda u yeer ayadoon qof la xaganaynin ayadoon qof la waxyeynaynin dadka umada meel walba joogtay ee deegaanka ee siyaasad u tagtay hadda u yeer ninkoon alfnimo ku maqnaa ha ku maqnaada taasi wax weyn baa laga suugay meeshiis ha joogo laakiin kuwa nimanka dirraba jooga dulmidiid siyaasiyiinta kale isla jooga dhamaantood u wada yeer urulaalayaal wixii shalay dhacay uu dhamaaday maanta inaga inaga suusan inaan wax sameysano dheh taasaan anu kugula talin lahaa oo inaan lays caayin iyo inaan wax la soo farfarin inaan hebel baa saa maalin yiri hebel baa saa wax yiri aan la oranin war dadkaas isugu wada yeer baan qoran lahaa umada deegaanka waxaan ka codsan lahaa dhamaantiin oo si kale la wariib idin ka codsanayaa dhamaan deegaanka bas deegaanka dhan ma wada markii jigjiga xaga looga baxo ilaa maxaan ku raadaa maxay ahayd qabri bayax waa nabad wajaale marka jigjiga uga baxdo waa nabad waxa kaliya buuq ka taagan yahay waa jigjiga iyo gudaheeda jigjiga gudaheedana ummad maate ah ummad aan waxba haysanin ummad aan dagaal diyaar u ahayn baa ku nool ninkii cimaqoor haysta ama gaari haysta ama hanti haysta isla waxba maartay waxaan idin oran lahaa dadka dajiya ummadda yaan la barakicinin qof walba nabad buu wax ku yahay nabadaas un baa ina wada deeqda kaliya ciidanka qarankuna mid soo guuray ma ahayn iyo mid meel kale ka yimid waa kii sii jooga walaala waligiiba uu deganaa ciidanka qaranku
nabadgelyada inuu sugo oo dadka kale celiyana waajib baa ka saaran hadday qaban waayeenna way guteenta maxaa lagu kala joogay ciidanka qaranku waa shaarka kaliya ee federalismka lagu yahay ee dadka wada ilaaliya hadduu kaasi ummadda kale celin waayo dee muxuu qabanayaa kale waxba qaban maayo marka waxaan idinka codsanayaa oo walaaltinimadii ka codsanayaa inaydan deegaanka gubin wasiiba waliba caasimadda aydan gubin intaasaa la dhisahayay intaasoo sana caasimadda hanti lagu bixiyo oo wax lagu bixiyey wax yar yasa haddaad ku burburisaan waa dhibaato ma South Sudan baa noqonaa maxaan ku dhahdaye ma carabtii burburaysa ee naga iska dhigaysa baa noqonaa war caqligiinu ha shaqeeyo xaqu dirar waa la yeelan karaa ururka muxuu ahaa Jabhadda Alef wax badan bay dagaalamaysa wax badan bay u maqneed sibu xaqeed u dilaacay oo dadkeedii iyo dadkii laga xanibayay baa raacay tii horena waan cambaaraynaa caburska dadka ku haysay maanta waxa taagan laakiin Alefna caburs lagu maayo ra'iisul wasaaruhu hadduu cadeeyay inuu Alef wada hadal la yeelanayo masiirka ummadda ay u dagaalameen ay kala hadlayaan waa soo dhaweynaynaa anagu fanaaniin baan anagu siyaasi fanaan baan ahay ummadda Soomaaliyeed laakiin way taabanaysaa markii dalkayga iyo deegaankayga ummaddaydii aan arko ayagoo ama qof dhimanaya ama gubanayso ama dabka dhac diyaar uma mana rabo ma ayaga wax ku ahay ma doonay inay magaalada jisho gubato ma doonay inay dadka dhamaatada allaayo ma doonay waxaan doonayaa inay noolaadaan ay qurux badnaadaan baan anu doonayaa taasaan aniguna wax ku ahay idinkuna aad wax ku tihiin marka waxaan idinka codsan lahaa midnima in wada deeqda midnimadu waa waxaan la soo celin karin adigoo Alifa adigoo DDS ah adigoo Soomaali galbeeda adigoo dulmidiida wax dulmi rabartu ma jirto magaca dulmidiid ninkii yiraahdo waan ka soo horjeesanayaa horta waa qalad nin dulmi raba ma jirto laakiin war fikirkaas adigoo dulmidiid aan dulmidiid baan laakiin fikirka aad u wato waxa ka khaldan aan saxno ee kaalay taas waa muhiim war ma garateen wax dulmi raba ma jirto adduunkan dulmi wax u tarhaya ma jirto war ma fahanteen Soomaali baan ahay Soomaalinimada ay deeqda Ethiopia waxaan isku darsanay waa dad baan isku darsanay oo dhaqaalaha naga dhaxeeyo ummad baynu nahay ma garat Tigray waa Tigray Oromo waa Orom Soomaali waa Soomaali Benishangul Ahmar waa sida kadalika khariirada Ethiopia oo dhan markaad saa u eegto markii la kala qaybiyo gobolada istidiyada markii la kala qaybiyo meel ay Ethiopia ku qoran tahay ma jirto waa qowmiyad isku wada yimid haddii la kala dhaqaaqo walba intiisu la dhaqaaqay laakiin markii la isku wada yimaado dadku ku baa Ethiopia lagu yahay waa magac kaliya ka dhaxeeya qof ay ku gudan tahay halka kaga qoran tahay midna ma jirto marka Soomaali baan ahay deegaankayga baan haysaa cidaan wax la qaybsanay cidaan la noolaanay ama la nooshaa nabad kula noolow waxaaga hayso talahaan baan idiin soo jeedinayaa dagaalku ma wanaagsana wallaahi inuu soo wanaagsanay hadduu dagaal wanaagsan yahay hadduu dagaal wax tarahayo 30 sano bay Soomaaliya madax la gashay urula la yaalo haddana inaguna hadda dagaal kicino tan waan ololaynaa daban qorada gelinay Ethiopia kale Soomaaliya ayadoo awal bisuuraysa waan sii hurunay xaq ayaduna waan sii hurunayna hubkun baa inooga soo degay cidaan doonana hubku iga hor istaaga madaxun bambaf qaraxyadun baa isqabsani geeska Afrika oo dhan olol baa taaban marka bum maxaa marka la faa'iiday yaa faa'iiday marka cid faa'iiday ma jirto Oromona dagaal dan ugu jirto Ethiopia kale dagaal dan ugu jiro qoraallo waxaan ku arkay halkan ay soo qoreen dhalinyarada qaarkood Ethiopia dooni mayno cid doon kula ama kugu qasbisay ma jirto fikirkaaga hadda aad aaminsan tahay aaminsan oo xor baa tahay laakiin ilaahay ma fasixin mana kuumana ogola mana xalaalaynin gaalay muslim ahaada inaad qof disho kuuma xalaalaynin Soomaa abo maya way tira gabadheeduna ay u raacday maya marka waxaan ka codsan lahaa inaydan abo idaab macaan inaan dab la sii hornin inaan deegaanka la gubin in ummadda deegaanka ku nool ee wali siiba magaalada Jigjiga dad dan yar oo maatiga ku nool inaan la burburinin baan kula talinayaa Oromo waxay shalay ka dagaalamaysay Soomaali kuma sameyn karto deegaanka kuma sameyn karto Riyaala Xamid habeen sii hore markii ay meesha u qabsaday abi live uu soo galay oo uu dadka la hadlay eray waxaan ka qoray haddii ay Oromo kursi oo maaragtay ay ka kacsanaysay Tigray haddana anaguna maruma ka kacsan doonaa sheekadii uu ku keenay marka halkan waxba soo dhigi maayo laakiin sheeko fiican bay aad murti ah marka waxaan kula dardaarmayaa magaalada Jigjiga maanta waa nabad
ciidanka qaranku wuu joogaa waxbuu ilaalinaya oo dadku kala celinaya ciidanka liyo booliska xeriyahooda ay joogaan dadka magaalada lagama qixi karaa la yidhaha la deganaada dukaamadii waa loo furay wax walba sidoo siba kusoo noqday waxaana ilaahay ka baryahayaa in ay nabadgelyo waarto ay sii socoto oo dadku ay meeshooda ay nin walba ku nagaado oo maxaan ku rahdaay ay sii socoto nabadu xukuumadda hadda jirtana haddii de madaxweynaha cabdi madaxweynihii hore dowlad deegaanka cabdi maxamed cumar hadduu ama dagaal waday ama rashadnimad waday haddii xilki waa ka degay wuxuu ahaaba maanta xun iyo sanba cafis in la iska cafiyo ciddii waxaasina ha cafiyo ciddii dambi ka galay ha cafiyo wuxuu wanaajiyay waan uga mahad celinaynaa ha la is cafiyo madaxweynaha la cafiyo madaxweynihii hore deegaanka la cafiyo haddii de aad caloosha wax ku qabto oo aad maaragtay de dhibaato badan oo aad ka tirsanayso dee maanta waa walaalkaa wixii dhacay qalad waa dhacay laakiin lama soo celin karo runtaas ahaan baan aaminsanahay waxaana rajaynayaa ciidanka liyu boolisku inay ogaadaan ummadda deegaanka masiirkooda ummadda deegaanka iyagaa ciidan u ah inaysan dab kusii hurinin inay ilaaliyaan inay xeryahooda ku jiraan inaysan dagaal bilaabin haddii ay ka fursan weydo ay arkaan inay xaalad kale isku cakiranto dee baakab ha us joogaan ummadda deegaanka ha difaacaan laakiin eega inay isku dayaan in nabadda dejiyaan waxay waxa ciidan u yihiin waa ummadda deegaanka tabarta yar kuwaasay ciidan u yihiin madaxweynaha hadda joogana siday madaxweynihii hore ula shaqeynayeen si lamid ah ula shaqeeyaan saasaan anigu ku dardaarmi lahaa magaalada jigjiga waa nabad waad mahadsantihiin wixii hore ay soo gaadhay fiidiyoya ay la iisoo dirahayeen sugahayeen oo maanta magaalada jigjigana hadday isoo gaadhaan inkastoo khad la-aan yihiin waan idiin soo daraya insha allah hadduu yidhahdo waan idiin soo gelin doonaa waxaan doonaya kaliya aan usoo galay waxaa weeye inaan idiin sheego magaalada jigjiga inay nabad u baahan tahay nabadna tahay laakiin media dadka ku jira doonaya inay dab kiciyaan eele madaxweyne cabdi baa la afduubtay haddaa la soo celiyay madaxweynenimadiisi uu kusoo noqday sidaas maa xaaladu waa inaad wax fahantaan clickta iyo websaydyada iyo streamka youtube-ka intaad isku xidhateen bajajka aad doonaysaan in ladiin daawadeed kharash ka samaynaysaan ummaddaanada ma rabna inay kuolisha raalli ahaada 100% raalli ahaada magaalada jigjiga nabad baa looga baahan yahay intaasoo milyan oo bir baa ku baxday guryeynteedii iyo waxaynteedii dhisideedii war maanta haddii dabdabada laga geliyo la burburin innaguba wax iska burburin oroma waxba lagama burburin hal oroma maba jooga magaalada dagaalka dhacay waaba ka qaxeen ciidanka qarankuna oromo ma noqon karo ciidanka qaranka dhan ee isku jira oromo ma noqon karo jigjiga hadday olosho dirdhabana waa ololi soomaali baa labaduba degan iyo oromo waa la wada degan yahay dirdhabana ha burburinina jigjigana ha burburinina ummadda danyartaana ha burburinina intaasaan idinka codsanayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waad mahadsantihiin haddaan gafayna shaydaan baa ka adeegtay raalli ahaada haddii qof codki hadalkayga ka xumaado meesha idinku jirana walaala raalli ahaada waad mahadsantihiin mar walba waxaan jecelahay deganaanshaha ummadda jigjiga nabad waarta ayaan ilaahay uga rajeynaya waa nabad garaadada iyo ummadda joogta garaadada waxaan intaan ka bixin waxaan la hadlayaa garaadada iyo salaadiinta iyo odayaasha jooga magaalada dirdhaba waxaan idinka codsan lahaa aan mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanaya shalay wixii dhibaato haddaa dhibaato badan tirsanaysa inuu dhib laydiin geystay maanta madaxweynihii waa isbedelay deegaanka inaad tagtaan baan rajeynaya xukuumaddii hore dadkii ahaayee meesha xilka hayana waxaad siisaan waqti yaan lagu bilaabin dagaal iyo bahalkii taga oo dadkiina hadaad wax u qabanaysaan oo bahalkii aad sameynaysaan oo deganaansho ummadda kusoo celiya la safta madaxweynahan cusubna u caddeeya inaydan isaga dagaal kula jirin inaad doonaysaan ummadda masiirkeeda in la helo si wax wanaagsan in la helo horumar lagu tallaabsado oon la iscaburin intaa kaliya inaad doonaysaan doorashadu waa xor baad u tihiin waa idiin bannaan tahay shirkad geli waa sidaan aanu qabo fikran aanu qabo ma aaminsani qof baan anugu siyaasadiisa nebcahaye adiguna nac ama taas ma aaminsani ummadda deegaanku ha iska ilaaliso shaksi nin jeclaysi oo qofka ninkan aad jecel ninkan aniga ila nac iska ilaaliya waa ceeb aad iska ilaaliya mar hore wuu inagu soo dhaca hadduu xukun hor ahaaye hadduu tblf de waxaydba inaga ilaaliya war eega qof walba waa soomaali qof walba deegaankan u dhashay miidiyuhu waa xor qofka afkiisu waa xor ha laga dhigo qofka haddii xor laga dhigo afkiisa uu hadli karo neefta kasoo boodaysa wax caloosha ku jiraa banaanka imanaya dee waxba ma samayn karo kursiga aad joogto haddaad madaxweyne tahay qofkan banaankiisa hadduu ka hadlo uu caloolfayoobaanaya mooye inta kursigaa ku yimaado ka dhaqaaq waran maya kursigan ku fadhiisanaya taas aamina xildhibaanadu iyo maxaan ku rahdaay baarlamaanka deegaanku
naf isu yeela oo hadla dadka aad mas-uuliyiin ka tihiin inay xor yihiin u muujiya idinku inaad xortihiin muujiya deegaanka xornimaa loo baahan yahay xornimaa loo baahan yahay laakiin looma baahana in la shacburiyo keliya uma baahana shalay waxay ahayd anaa aaminsan in siyaasiyiinta kasoo horjeeda mabdaa madaxweynaha inay meesha ka carareen oo laga eriyo ay adhisabo tubnaayeen taasina anugu raalli kama ahayn idinkuna raalli kama tihiin wax kale unbaad rabtaan mooyaan maanta free ha la iska dhigo free life qof walbo joogo qof walbo deegaanka joogo free ha noqdo ninka shaqaale dowladdiisa ha u shaqeeyo ninka siyaasadiisa ha ku ekaado kii dhakhtarnimadiisa ha ku ekaado kii ciidankiisa ha ku ekaado baasha ha ilaaliyo ninkii dukaamada ganacsadiisa ha ku ilaaliyo siyaasaddu sidaa ha u kala socoto qof walba wixiisa ha ilaashado laakiin yaysan noqon inaan kursi iyo siyaasad kaliya wada eegno war waa idiin mahad celinayaa waad mahadsantihiin midnimaa wax lagu yahay anigoo cali waxaan caddaynayaa dhaanta waxaan caddaynaya finance soomaaliyeed haddii onolif shalay la isku eryahay onolif baa taageertahay onolif baa kana war onolif shirka ay qabsanayso haddii anigoo shaksiyan aad iga soo casuutaan waa idiin imanaya waa idinkala soo qaybgelaya midnimaa wax lagu yahay midnimada ummadda soomaaliyeed baan doonayaa midnimada deegaankaan doonayaa shirka ka dhacay Stockholm ee onolf ay qabsanayso walaala ilaahay idinku gooleeyo shir wanaagsan oo qurux badan baa idiin rajeynaya dadka onolf shaarkeeda xiranaya dabka hurinayaan ha iska daayaan kuwa deegaanka xiran shaarkooda ee dabka hurinaya ha iska daayaan kuwa Soomaali wax kala aaminsan Soomaali galbeed ee ayagana dabka hurinaya ha iska daayaan kuwa Soomaali weyn aaminsan dabka deegaanka ku hurinaya ayagana ha iska daayaan war dabka qofka hurinayo wax u faa'iido keenaya ma jirto wax faa'iido u keenaya ma jirto dhibaato mooyaan waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anigu cali baan ahay midnimo iyo nabad baan idinku baaqayaa midnimo iyo nabad waana samayn doonaa tuur iyo xaflado Nairobi haddaan tagana xaflad baan ku qaban doonaa midnimo insha allah haddii la yidhaahdo maanta waxaynu u taagan tahay midnimo waxaad ku weyday reebel ku